Cabdullaahi Kashka dhaqaalaha YouTube ka sameeyay waxay u dhaxeeyaan bishii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب السود وهذا يوتيوب كديك داون السما دونيكا بفشيال وأنا ولكن عبد الكريم ما أنت حانيذ وذا برنامج كيني حقاه يوتيوبر وأنقصه قادم دونه يوتيوبر كعنك عبد الله كشكا عبد الله كشكا وأنك كلية مقالك وكم مقضى أن الله بهنين قصل إفك muuqaalka haduu Cabdullaahi Kashka ku jiro looma baahna in qosol effect la raadiyo Cabdullaahi Kashka markaan u gudagalno xogta YouTube-kiisa waxa uu furay 21 February 2021 waxa uu ka hadlaa messenger type-kiisu waa people oo ah dadka views-kiisu wuxuu gaarayaa 7,228,000 iyo dhowr subscribe-kiisu waxay maraysaa 156,000 xagga muuqaalada uu soo galiyay gaarayaan 126 muuqaal total grade markaan fiirno wuxuu kaga jiraa kaalinta grade B aaladu wax lagu saadaaliyo social blade wuxuu kaga jiraa 292,000 iyo dhowr xagga subscribe rank wuxuu kaga jiraa 2,774 xagga views rank wuxuu kaga jiraa 775,000 iyo dhowr xagga janaalada ka hadla people wuxuu kaga jiraa kaalinta 1556 Cabdullaahi Kashka waxa uu kordhay 30 maalmood ugu dambeeyay 9,000 subscribers ah xagga views markaynu fiirno 592,000 iyo dhowr ayaa u kordhay Cabdullaahi Kashka dhaqaalaha uu YouTube ka sameeyo bishii waxay u dhaxeeyaan $148 ilaa $2,400 halka sanadkii ay u dhaxeeyaan $1,800 ilaa $28,400 halkan hoos markaynu fiirino waa muuqaaladii ugu dambeeyay oo soo galiyay Cabdullaahi Kashka waxaana daawaday dad aad u fara badan wuxuuna ka sameeyay dhaqaale aad u sareeya tusaale ahaan isniintii oo kale muuqaal soo galiyay waxa daawaday 153,000 wuxuuna ka sameeyay dhaqaale u dhaxeeya $26 ilaa $415 arbacadii oo kale wuxuu soo galiyay muuqaal waxa daawaday 146,000 wuxuuna ka sameeyay dhaqaale u dhaxeeya $7 ilaa $164 Cabdullaahi Kashka wuxuu ka mid yahay YouTuberada Soomaaliyeed kuwa ugu fanaysan YouTube-kiisa wuxuu maraa 157,000 subscribers ah waxaan u rajaynaynaa sanadkan aan ku guda jirno inuu xiro 1 milyan Cabdullaahi Kashka wuxuu ka mid yahay YouTuberada aan aad u taageero waana nin qosol badan muuqaalka asiga soo muuqdana looma baahan in qosol effect la soo raadiyo bal ila daawo xir waan in dadkii la fadhiyay xataa ay ku qosleen qosolkiisa anigana barnaamijka bixinay xataa waan ku qoslay aad baad mahadsantihiin asxaabta qofkii aad jeceshihiin inaan soo qabto comment-iga hoos igu soo aad baad mahadsantihiin asxaabta ila soo gaartay ilaa dhamaadka sharafi karaam korkiina haato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa BBC-da TikTok oo aniga Cabdullaahi Kashka warar xiiso leh ayaan idin hayaa labadii maalin u dambeysay waxaa soo xoogaysanaya dagaal u dhaxeeya laba midgaan oo hore isku koox u ahaan jiray dhanka jirkana isku size ah jawaanadan sida qaldan u fiday dhinacyadana kaga qoran tahay dumis ama jibis ayaa la sugayaa in ay dheelaan kulan dagaal ah oo loogu magac daray wax ma isba dhaafno mid ka mid ah jawaanada dhinacyada dumiska kaga qoran tahay ayaa waxaa garab siinaya gabar da'yar oo lagu naaneyso Shaleemo oo iyadana kulamo hore dagaal ay safatay ku fashilmatay hadal haynta ugu weyn ayaa ah waa kuma shakhsiga caanka ah sida ugu fudud jawaanada mid ka mid ah oo bowsiyay ama la dheelay kulan barakacyaad ah oo xiisiisa wata fadlan daawada yay kula tahay wararkaas haddii aad fahantii haddaad fahminna qaybta comment-igana noogu soo qortid waa inoo muhiima waa aniga Cabdullaahi Kashka oo kaftamaya oo iska ciyaaraya si aan u qosolno iyaan wararka meeshaas